kulanti wanaagsan ku soo dhawaada xarunta wararka telefishinka BBC ee London wararka ugu waaweyn waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa BBC u sheegay inuu jiray isfaham dawladda Itoobiya lagu siinayo 19% dekada Berbera waraysi dheer ayay BBC la yeelatay gacanka qasa koronto la'aan ayaa ka taagan warbixin gaar ah ayaanu idinka haynaa xaaladda ka sii dari karta ee dadka qasa ku nool toban sano kadib ayay masraxa ku soo noqdeen kooxda orchestra Bawaab ayaanu la kulannay iyadoo maanta ay ku beegan tahay 18 May 26 sano kadib markii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ayaa waraysi uu siiyay telefishinka BBC-da wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire waxa uu ku sheegay inay ogaayeen oo uu jiray isfaham dawladda Itoobiya lagu siinayo shirkadda dekada Berbera 19% Dr. Saad ayaa difaacay heshiisyada maamulkiisu la galay imaaraadka ee la xiriira dekada iyo saldhigga military ee Berbera wariyaha BBC-da Farxaan Maxamed Jimcaale oo waraystay ayaa marka hore weydiiyay in heshiiska ay ku qoran tahay in cid kale wax lagu wareejin karo horta heshiiska uu ansixiyay baarlamanku way ku qoran tahay labada darafba cid ay doonaan inay ka sii iibin karaan haddii cid kale ay aqbasho in cid kale ka sii iibin karaan saamigooda marka runtii xaga wax ka cusub maaha laakiin xaqiiqdu waxa weeye maantadan wada hadal laakiin sanadaha ugu horeeya waxa ku qoran sanadaha ugu horeeya in aan ilaa wax laga ogaanayo cid kale lagu wareejin karin Soomaaliya wax ma ku qoran wax weyn labada weyn la isla ogol yahay laakiin maantadan wada hadlayno shirkadda DB World Berbera la yiraahdo ee maalintii dhawaato la daahfuray waa shirkad ay wada leeyihiin DB World iyo Somaliland oo kaliya laakiin waxa jira tafaahum iyo heshiis baa jira Itoobiya haday doonto inay soo gali karto sababtuna waxa weeye waa dekada waxa loo sameeyay Itoobiya inteeda badan oo isticmaal doonta raali ma ka tiin marka adinku dawlad ahaan xukuumadii Somaliland hadaad tihiin 19 kaas raali ma ka tiin anagu dabcan waaban de tafaahumka waaban galayba Somaliland waa waqtiga Somaliland waa waqtiga tafaahumka waa la galay wax dhibana runtii ma aragno laakiin baarlamaanka iyo shacabkii looma sheegin waa wax hadda uu soo baxay ma de baarlamaanka sidaan ku sheegay heshiiska ay approve gareeyeen amba ansixiyeen waxa kamid ahayd in amba bahashan DB World iyo Somaliland labaduba saamiga ay leeyihiin cid kale ay la qaybsan karaan ba ku qoran horta taas wax cusub maaha welina de rukumay soo biirin maxaa la Itoobiya waa heshiis guud weey laakiin mid weli kaas ma hana qaadin marka loo baahdo waa lagu celinayaa baarlamaanka wana laga la tashanay saldhigga military haddaan ka hadalno soo ma jira walaac ah yaa damaanad qaadaya haddii imaaraadku aan ognahay inuu lug ku leeyahay dagaalkan Sacuudiga iyo Yemen ka socda ay u isticmaalaan oo dhibaato ay uga timaado Somaliland wadadka ay warwar runtii ay ka muujiyaan maxay yiraahdaan base adin xaq bay u leeyihiin waana wax runtii la garan karo weeye laakiin xaqiiqdu wax weeye waxaan ku qanacnay base-kaas inaan wax dhibaato aan u lahayn Somaliland u lahayn Soomaaliya u lahayn gobolkan aan u lahayn base-ka waxa isticmaalaya wadanka imaaraadka oo kaliya saad wala socoto imaaraadku de maaha wadan super power maaha oo awood uu ku qabsan karo maxay yiraahdaa gobolka malaha isla markaana runtii wadanka imaaraadku waa la saaxiib Somaliland waa la saaxiib Itoobiya waa la saaxiib Djibouti laftigeeda runtii cilaaqad wanaagsan bay lahaayeen ilaa dhawaan marka runtii wax dhibaato uma aragno anagu waxaan aragnaa laakiin faa'iidadiisa waraysiga wasiirka Dr. Saad Ali Shire oo dheer waxaad ka daawan kartaa bogga bbcsomali.com adigoo ka galaya mobilkaaga madaxweyne Trump ayaa sheegay in qareenka loo xil saaray eedaha faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii hore aanu ku heli doonin wax dambi ah isaga kooxdiisii ololaha doorashada magacaabista Robert Mueller oo hore FBI-da uga tirsanaa ayay labada dhinac ee aqalka Congress-ku soo dhaweeyeen balse sidee bay u arkaan haddaba daawadayaasha taageerayaasha madaxweyne Trump Ismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya garaacista gitaarka ayaa magaaladan muusiga ee Nashville socodsiiya si ka duwan Washington siyaasadda ma ahan mawduuca baararka muusiga magaaladan laga dheelo wuxuu saamayn ku leeyahay maalin kasta dadka Maraykanka bixinta kirada iyo helista jacaylka kuwa codka siiya Donald Trump waxay diidan yihiin
in xiisad ka taagan tahay aqalka cad waxayna ciwaanada wararka u arkaan hadal aan macno lahayn. igama dhaadhicinaysid in waxaanoo waree kolba hoos loo gudbinayo inaanay ahayn qaar saacad loo soo daynayo oo loola jeedo in lagu kharbado Donald Trump. maalin kasta waxa soo baxa ee ah sida madaxweynaha u farageliyey baarista xiriirka la sheegay ee Ruushka ayaan dareen gelin dadka u codeeyey. haddii ay jirto caddaymo sax ah oo ku saabsan arrintani xaqiiqdii dib ayaannu u daraasayn doonaa. Trump waxa uu samaynayey wax sax ah, dadkuna sidaas ayay ku jeclaayeen. Bill Valentine waxa uu sheegaa barnaamijka muxaafadka ee loogu talagalay kuwa aan aaminsanayn warbaahinta caadiga. wuxuu qabaa in Trump uu ka walwalo oo keliya sidii uu ballamihiisa ololaha ku fulin lahaa. haddii uu hoos u dhigi waayo cashuurta fulina waayo ballanqaadadii uu ololaha ku galay markaas ayay dhibi jirtaa. taageerayaashan ciyaarta xeegada ayaa ka walaacsan oo keliya haddii kooxda Nashville ay gaari doonto koobka Santley. muxaafidka halkan jooga wax si ah kama qabaan madaxweyne Donald Trump. warbaahinta oo dhan waa dimuqraadi. waxa keliya oo ay doonayaan ayaa ah inay burburiyaan Maraykanka. waxaan ay ka sheegayaanoo dhan waa been. shaki kuma jiro inta ogol madaxweynaha inay kordhayaan. ma jirto calaamad muujinaysa in ay baaba'ayso aaminaadda ay ku qabaan. waxay qabaan inay awood gelisay madaxweynenimadiisa iyo sida uu wax isaga celiyo. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. warar ayaa ka soo baxaya gaadhi kuwa xamuulka ah oo xawaare ku socda oo jiidhay dad waddada dhinaceeda socday bartamaha magaalada New York. ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen. goobjoogayaal ayaa sheegay inuu gaadhigu xawaare ku socday kadibna uu koray halka dadku lugeeyaan. ma cadda sababta shilka. muuqaalada ayaa waxaa muujinayaan gawaadhida gurmadka degdega ah oo goobta jooga. in ka badan 3,000 oo maxbuus ayaa ka baxsaday jeelka ugu weyn dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. sida ay BBC-du xog ku heshay, hore ayaa dawladdu u sheegtay in 50 maxbuus oo quri ay baxsadeen. wararka laga soo xiganayo madaxda ammaanka ayaa intaa ku daray in 10 qof lagu dilay weerarkaasi Makala jeel ka dhacay. midowga Yurub ayaa sharikadda Facebook ganaaxay lacag gaadhaysa $124 milyan oo dollar iyagoo sharikadda ku eedeeyey inay macluumaad qaldan siiyeen markii ay iibsanayeen sharikadda xidhiidhka fariimaha ee WhatsApp sanadkii 2014. Facebook ayaa 2 sano kadib isku xidhay WhatsApp iyagoo markii hore taasi diiday inay dhici karto. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda musiibo ee ka iman karta Gaza haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka koronto la'aanta. xaaladda ayaa xumaatay kadib markii madaxweyne Maxamuud Cabbaas sheegay in aanu bixin doonin lacagta korontada laga keeno Israa'iil si uu cadaadis u saaro Xamaas. shumac ayay wax ku akhrisanayaan ayagoo isku diyaarinaya imtixaankii ugu dambeeyay ee sanadlaha. si la mid ah inta badan dadka ku dhaqan marinka Gaza ayaa Abu Shacbaan qoyskeeda aysan awoodin in ay helaan koronto bedel ah marka ay ka tagto korontada caadiga ah. koronto la'aanta ayaa dhibaato ahayd intii muddo ahba, balse hadda korontada guud ayaa la jaray maalintiiba 18 saacadood. ma haysano koronto markaan carruurteenna wax barayno. faranjeeradu way halaysan yihiin oo way gubteen. goobtani waa meesha keliya ee laga soo saaro korontada Gaza, balse bishii aynu soo dhaafna ayaa la xiray. waxay ku shaqaysaa shidaal la soo dhoofiyey iyo tabarucaadda ay bixiyaan beesha caalamka, balse hadda qarash baa loo waayey. haddii aysan koronto jirin waxay la macno tahay in biyo aysan jirin, sababtoo ah xeebtan dhacda marinka waxay ku tiirsan tahay biyo la nadiifiyey. mana jirto koronto ku filan oo lagu qaado bulaacadaha ama mid loogu sii gudbiyo badda. marka taa beddelkeeda waxaa lagu sii daayaa xeebta sidan oo kale. dhibaatada koronto la'aanta ee halkan ka jirta waxay salka ku haysaa loolan siyaasadeed. waxaa laga joogaa 10 sano tan iyo markii kooxda Xamaas ay la wareegeen Gaza, ayaga oo halkaa ka saaray ciidamo daacad u ahaa madaxweynaha Falastiiniyiinta. madaxweynahaas ayaa hadda isku dayaya inuu Gaza saaro cadaadis dhanka siyaasadda si uu awoodda ula wareego, xilli caalamka uu doonayo in dib loo bilaabo wada hadallada nabadda. dowladdiisa waxa ay sheegaysaa in mar dambe aysan bixinayn lacagta korontada laga keeno Israa'iil. qaramada midoobay ayaa sheegaysa haddii lacagta la
jaro in saamaynteeda ay noqon doonto mid musiibo ah. si adag ayaanu ula shaqaynaynay mas-uuliyiinta falastiiniyiinta si aanu fariimaha ugu kala gudbinno dhammaan dhinacyada, taas oo ah in loo baahan yahay in xal siyaasadeed loo helo dhibaatadan. xalka siyaasadeed ee loo qaateenka ahna uu dhab ahaantii yahay in Gaza ay dib ugu soo laabato dowladda sharciga ee maamulka falastiiniyiinta. balse hadda ma jirto calaamad muujinaysa intaa ay dhacayso. kala qaybsanaanta u dhaxaysa kooxaha ugu waaweyn falastiiniyiinta ayaa u muuqda kuwa caqabad ku ah dadaalada nabadda. dhanka kale 2 milyan oo qof oo ku nool Gaza ayaa waxa ay ku nool yihiin mugdi, lamana oga waxa xigi doona. imikana wararka ciyaaraha ugu waaweyn 2 gool oo Cristiano Ronaldo uu dhaliyay xalay Real Madrid ayaa qarka u saaray inay qaadaan koobka horyaalka Isbaanishka ee La Liga isagoo jabiyay koobkii gool dhalinta ee 46 sano u dambeeyay. Real ayaa 4-1 ku garaacday Celta Vigo, taasoo macnaheedu yahay haddii ay Malaga axadda barbaro la galaan inay Barcelona ka qaadaan horyaalka. Ronaldo wuxuu haystaa 376 gool isagoo jabiyay rikoodhkii 5 horyaal ee ugu waaweyn Yurub ee uu dhigay ciyaartooyga Ingiriiska ah Jimmy Graves. feedhyahanka Conor McGregor ayaa sheegay inuu saxeexay heshiis uu feed kula ciyaarayo Floyd Mayweather. ninkani Irishka ah McGregor ayaa intaa raaciyay in kontraadkani yahay taariikhi. Mayweather ayaa ah isna nin 5 qaybood oo feedhka ah hore ugu soo guuleystay, waxaana la filayaa inaan kaarti ku jirin ee ay tahay feedhka oo kaliya. kooxda muusikada ee Boab ee caalamiga ah waa koox soo jireen ah oo tuma muusikada Afro-Cubanka ah oo soo jirtay in ka badan 50 sannadood oo haddana aanay tamartooda waxba iska bedelin. meel kastoy tagaanba waa la ruxmaa. kadib markii ay 10 sano hawada ka maqnaayeen, imika ayay soo laba kacleeyeen, waxay soo saareen alban cusub. caasimadda Senegal ee Dakar ayaanu kula kulannay. L'album sera très original parce que heesuhu waa Casamanican. waa wax aad u qiimo badan marka saani 10 qof isula qaadaan heesahan. waxa kale oo aanu ku darnay koora qayb kasta oo ka mid ah. par balade vient de la Casamance. waxay noqonaysaa asal waa heeso dhaqanka ka turjumaya. badankoodu waxay ka soo jeedaan gobolka Kasamka. waxa ay yihiin luqadaha Wolof iyo Bala. Il y a la kora là-dedans qui est dans tous les morceaux. Alpha waa wiilka Ndioga Dieng. waxaanu dhashay 1972 sanadkii aabihii ku soo biiray kooxdan Boab. waxaanu wadnay bandhig habeenkii uu dhashay. dabeetana annagoo wada soconna ayaanu u tagnay. iminkana isagii baa aabihii kala wareegay. Et puis il a tous les morceaux du Boab dans ses oreilles. Il peut reprendre tous les morceaux de tout un chacun des autres chanteurs. C'est normal, c'est notre fils. heesihii aabihii oo dhan waa uu hayaa. hobalada kalena heesahoodii waa uu qaadaa. dabcan waa wiilkaygii. waxaan rajaynayaa inay kooxdu socon doonto. qofba qof baa bedelaya. waa mucjiso nagu jirta. Nous espérons que ça va continuer. ugu dambeyntiina waxaan caawa idinkaga tegayaa curri laga yaabay inta uu dherer leeyahay oo loo maleynayo kuwa ugu dhaadheer adduunka. currigan waxaa la yidhahdaa Omar. waxa uu dhererkiisu yahay 120 sentimitir. waxaanu noqday caan kadib markii Steffi Hurst oo haysataa ay furtay bogga Instagram-ka oo Omar culayskiisu waxa uu yahay 14 kilogram. waana curri hilibka kangaruuda ayuu cunaa currigan. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan BBC da website-kayga bbcsomali.com. barnaamijkii intaas ku dhan yahay nabadgelyo.